magaaladan waxay jirtaa qiyaas ahaan 110 sano jirtaa magaalo ifaysa waayo runtii taariikhna ku leh waddanka Soomaaliyeed gaar ahaan beelaha afka mayga ku hadla waxay u tahay wadnaha the heart of my people waaye marka caan waxay ku ahayd baydhabo janaysa u jeedaan dhirta iyo dooxdooxan dooga alla siistay ani magacaygu waxaa lahaa Maxamuud Xuseen Caliyow Ibrow waxaana ka yimid waddanka UK aan muddo badan 13 sano ku noolaa laakiin wadamo badan aan ku soo noolaaday waddankaygaana imid alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaaha mahadaas leh media program aniga markaan galayay xoogaa waa fahamsanaa faa'iidada uu u leeyahay aniga iyo gaar ahaan waxa tababarkaan bixinayo media projects aniga waxyaabo badan aan u qabtay deegaankan project buundooyin aan u saxay way jiraan oo qaldamay jidadaan samaynay buundooyinaan samaynay hadda buundo waay waxaan dhisoynaa u jeedaan setting out kan sameynaynaa laakiin shaqadan qabanayo waa shaqo ummadda ay u baahan tahay ummaddan ay ku faraxsan tahay media wax kale ma aha aqoon-yahaniinta indheergaradka dadka dibadda wax ku soo bartay ama diaspora ha noqdaan dibadda jooga inay dalkooda ku soo biiriyaan aqoon iyo xirfad kordhin ah si ay u hagaagto tayada la rabo nolosha standardka inuu gaaro dalka iyo dadkaba in la gaarsiiyo waxaan tababaray saad arkaysay maytrine aan ku faano aqoon-yahan Maxamed Bile iyo kuwo kaloo fursad waayay aan tababaray Caliyow injineer waxaa haysiisa Berlin aan daalin waayo is a man of action qoftan kale waxa qof open waayo is like qof hadana passionate waayo at least in wax isbedel muuqdo inuu sameeyo dadka waddanka because waxa taas wax ku tusaysa in muddo voluntary ku shaqeeymaysto hadda ay contractis dhamaatana wali uu sii shaqeynaa uu sii rabaa inuu sii shaqeeyo is like qof ay ka go'anto inuu isbedel waddanka ku sameeyo xirfada aan ka bartay injineer Caliyow يعني waxaan rabaa inaan ku yani marka ugu horeysa inaan ku dabaqo mashaariicda iyo howlaha qabanayo inaan ku dabaqo maadaama aan engineer ahay marka labaadna in oo maxaan dhahayaa u sii faa'iideeyo dhalinyarada cusub oo hadda yani ka soo baxayso jaamacadaha oo yani soo dhameynayso culumtan inaan ugu sii faa'iideeyo engineer Caliyow sida runta ah waxtar weyn u leeyahay magaalada iyo guud ahaan gobolka waad ogtahay Soomaaliya burburkii kadib ma jirin wax professional engineers ma jirin saas daraadeed buu noo buuxiyay kaalin naga banaaneed oo ah inuu naga caawiyo horumarinta magaalooyinka iyo maxay ahayd infrastructure development-ga iyo urban planning-ka iyo waxyaalo badan oo ku saabsan nolosha muhiim u ah sida dhinacyo badan oo ay saameyso markaan physical development mashaariicda aan sameynay oo la taaban karo waxa kamid ah horumarinta aan ku sameynay magaalada gudaheeda CBD-ga commercial district area magaalada Baydhabo awal waxay congestion ay ahayd in jidadkii la suubiyo oo la kala furfuro oo haddaba shaqooyina ka socda iyo jidad xaafado awal aan la mari jirin inaan jidad cusub u sameyno kuwii hore oo dhisnaa oo la cariiriyay oo dadku adiga 30 sano maamul ma jirin iyagana inaan expansion ku sameyno aan ballaarino gurihii value-gooda inuu kor u kacay meeshii wadooyinkaas la sameeyay caafimaadku inuu kor u kacay security iyo safety naftiisa kor u kacay marka horumarka la taaban kara taas ka mid ah NIDA waa barnaamij fiican oo lagu soo celinayo oo dadkii waddanka ka soo jeeday diaspora ay waxtarkoodii dalkooda dib ugu soo celinayaan NIDA ay ka caawisay inay soo noqdaan arrimahaasi fulisi marka waa very important oo waxaan dhihi karnaa aad ay muhiim uga tahay barnaamijkaasi horumarka guud ahaan Soomaaliya iyo ka qayb qaadashada dib u dhiska dalka media IOM inay weligood wadaan hawshan media ummadda way u baahan tahay waayo dalkan dal baaba'ay waayo u baahan dad xirfad leh dalkan u naxariista una gudbiya talo fiican aqoon fiican iyo xirfad fiican ay u baahan tahay